Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta Muqdisho ka daahfuray shir caalami ah oo looga hadlayay waxbarashada sare ka oo diiradda lagu saarayo hanaanka waxbarashada sare ee bulshooyinka colaadaha ka soo kabanaya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay daahfurkiisa xubno ay qayb ka ahaayeen mas'uuliyiin matalaysay jaamacadaha ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho, xildhibaano, wasiiro, safiiro iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa tilmaamay in xukuumadda uu qayb ka yahay ay ka go'an tahay tayeenta waxbarashada sare ee Soomaaliya. halka maanta ay taagan yihiin iyo tirada iyo inta ay dunida ka yihiin intaba waliba Singapore iyo wadamada yaryar la halmaala waad arki kartaa. marka aqoontu waa ta horumar in gaarsiisa qofka mid adduun iyo mid aakhiraba hadday aqoon jirto gaarsiisa. wasiirkan la yar sheekaysanayay waxbarashada waxa weydiiyay inta jaamacadood ay leedahay maanta 100 jaamacadood kor bay u dhaafay Soomaaliya wasiir haddana dugsiyadiina la mid waxaynu u dhaxaynaa heer afkeenina aynu ka tagnay. haddaad xataa shicaarada inoogu yaalla eegtid af Soomaali baan ka baaro waa ka waay halkaasaan wiila u maleeyay. anu waxaan qabaa manhajkii Soomaalida ee dawladdii ay Soomaaliya samaysay inuu wadamo badan af Ingiriis ku hadla ka fiican ama luqado kale ka fiican. waayo dadkii manhajka wax ku bartay aqoon badan baa ku duubnay luqaday ku turjumeen dadkeenii waqtigaas. bal physics oo fiirso حواري هي كينان انجليش سيده velocity يا acceleration waxay doontaha ahaato atom ka iyo sida uu turjumeen luqadaha kale carabiga aqoonta halka ahayd inay maanta kombuyuutarada iyo technology-ga horumarka gaaray ay turjumno intii hore la leeyahay boqolka jaamacadood bay dhalinyaro ka soo baxaysa igana raali ahaada way jiraan dhalinyaro fara badan oo aqoon ahaan dhisan oo aadiyadu aqoonta iyo xikmadda ku duugan iyo dalka gudahooda wax ku bartay. haddana mararka qaar waxaad arkaysaa inaan ama gabadh jaamacad ka soo baxay sadar af Soomaaliya oo dhisan oo qoraal oo aad u dirto wasaarad ama haddaad tiraa af Ingiriisiga bal waa jaamacadu waa tan af Ingiriisi loo dareeray. anu waxaan isleeyahay dowladda sane ay jooriyada lagu batay meesha kaliya saaqad laga heli karaya hadii ku baraaf Ingiriisi xaqu bartay ay adiyay qorto إنه سووا ضمن دقالات منك وين هيستو اللغة دون وحكو برتا تركي كان تجي ما أنتظر واسمع قصة تركي بيس هسون بدون يا مخبر هذا هل كنت جاي هنا ولا يا ثم هنتي نارك شينا هذا تكتو واحد يمكن ترجمه بعض هذا دقالة الله بعد أدنك ولي بواحد لا يراه هذا هذا يتحي ويقرنا يعني تريوس كي وابد دقالة هكواد أما هو لسيميهين أما كله يهين مريكا دوان نوابي بدل يعني بقى وتشوف هذا سنقف تاني صح هذا ما أنت استراح ولا شيء وقدي ساسون مويان مثل مركا قال إن أفكارات أقوم تمياه ما هو إنبا أنتوا إيه بقشة على السبيل أقوم تعال بسنا research يوم عرفتي علم باريس عرن وواحد كمبريد يشكلوها أي كتر تماما والنوبة هنا هي إن علم باريس هي عرن هي تكنولوجي سماينه دنيا الله ترتنا صوك عنا علم باريس الصوماليات سماينه وإلى بربر سعتها كوفين كدقن كين إيه أفكين إيه أخلاقيات كين إيه إمكانيات كين إيه شريطان كين أمضنمو. dhawaan ayay ahayd kulan looga hadlayay hanaanka waxbarashada markii lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ka oo ay ka qayb galeen xubno ka socday dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka.